madaxweyne aad iyo aad baad mahadsan tahay magacaygu waa Faysal Fifa waxaan ka socdaa telefishinka Somali Cable xubnaha guddiga heer qaran ee aad u xil saartay hawsha corona ilaa hadda shacbiga Soomaaliland way saluugsan yihiin qaabkay u shaqeynayaan adigu ma aragtaa dhaliishaasi loo jeedinayo guddigaasi horta dadka shacabku iga badan yahay aniga shacabka waxa ku jira qaar iga cilmi badan waxa ku jira qaar iga ildheer qaar hawsha iga sii garanaya marka shacabku mu wada dhaliilna hadii la dhaliilo dhaliilaha aynu isla helno oo qaldayo waa tursinayna waa saxina wixii qalada soo baxa laakiin da shacab wali maan maqal talooyin badan oo halka waxa ka qadana ka qabo dhaliilna nin shaqeynaya oo joogo dhaliishu waa caadi mudane madaxweynaha aad mahadsan tahay muddo 2 sano iyo barbar xilka haysay dadka ku xanaanta waxay ku weedanayaan in go'aamada aad fulin talooyin baad si wadaadada jaadkii talooyin baad siisay maxaad ugu dhaqaaq weydaad oo madaxweyne ummadda inaad tiraa 1 iyo 2 go'aankaasaan qaatay masaajidada waan xiray jaadkii galax way ma saaray waxaa la filayaa go'aankii adkaa ee taageerayaashii kulmiye kugu doorteen maxaad mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aad u fulilaan ma maqashay Soomaalida waxay tiraahdaa xiniyo kuwa kugu yaalamayo oo kuwa garab joogo odaasha ma maqashay go'aanka marka aad dadkaaga tahay waxaad qaadanaysaa marka dadkaaga kugu raacsan yihiin kii aad u danaynaysaa waa dagaalameysaa hadduu kugu diidan yahay dee sabab dagaalam karaysa dadkaygu markay ila fahmaan igu raacaan ee in yar oo loo arka inay wax khilaafsan yihiin la qaban kara ay tahay markaasaan ku haleynay daadaa waxa la halka sacab ku tahay qaadka meen kugu soo hagaagay xabad ku dhufto intii misaad dee baalkii u bahay marka horta dee isla jaan qaadno aan soo raacno dadna wax taa war badanahay aynu wax dhibaax laakiin dadka dee ka dhex bixin baay law dadkii aan wadagaal galnay baa wixii iga taagan bay oon fahamsanayn malaayiin magacayguna waa Maxamed Xuseen Jaamac Star TV baan ka socdaa waxaan doonayaa madaxweyne in aan ku weydiiyo su'aal la xiriira dhinaca qalabka iyo nidaamka ay Somaliland awoodi karto in ay ku baadho cudurkan dilaaga ah ee coronavirus awood intee leeg bay Somaliland u leedahay in ay nidaamka saxda ah ee lagu ogaan karo ku baadho qalabka dhinaca qalabka haddii ilaahay yiraahdo imika waxaan marayaa 2-3 xiis soo socda inuu ka maarmano in la diro baaris dambe qalabku waa yaala waxa keentay jimcida hay'adan huba keentay experts way soo raacay ilaa 3-4 ma joogo Soomaaliya ajnabi ah markii la rakibay wali shay walaal la rakibay cusub ee cilad u leeyahay adduunka waa kan kala go'ay hadda tiraahdo laambad baa la doonayaa halka loo diraya waa dee adduunka la ku dhamaahay inta la raadinaya xabada la keenay way ka qaadanaysa wuu yaala horta qalabka dadka aqoonta loo yaala hadda ilaa xalay ilaa shalay uu shaqeynay 3 cisho waxaynu u baahanahay hubis ah in la hubiyo perfect international inuu leeyahay ka bacdina waa bilaabay waxaan ku sheegay markuu bilaabmo wax badan baa ilaahay naga yareeyay wax soo bixi doona dad badan caafimaad wala waa qaba Allah oo si adduunyada waa wax qura lagu joogsado oo qabtaa joog fariiso dadka dhex gal waa inta qura la gaaro waana tayn u halgamin qalab kale way soo socdaan hadii alla yiraahdo ilaa 2 week meelaha way soo wax soo qaadan leh kan oo kala yaala imka Dubai wax soo qaadan leh marka qalab waa la dad waxna ma naasiisan soo warshay markii nin baryayaana waxba qabsaday haddii ugu noqonayna inaga halkaas dhigay murankeena iyo Afrika oo dhanba maanta way meel baan aynaan cidna canaan karin marka ayaa la waxsiiyay igu rid teenkina wala maanta naftu daafacaya waxa ku soo gaara waa wax yar marka waa kala firfirana laakiin alxamdulillah wuu leeyahay baalkaas waa inuu maalmo gudahood ku hawlgala oo la xaqiijiyo waxaan jecelahay in su'aal ku weydiiyo xanuunkan waan arkaynaa soo dadka uu galayo awoodeenana waan arkaynaa dawladaha mucaawimooyinka ugu waaweyn bixiya ilaa Mareykan caawiyay Ingiriis caawiyay waa dawladda Turkiga Somaliland wax mucaawimo ma weydiisatay dawladda Turkiga hawsha ayada ma ka hawlgashay dawladda Turkiga iyo dawladda Qatar oo mucaawimooyinka ugu waaweyn bixinayo Turkiga iyo cid walba markuu dagaal dhacay imika boolati kuma jiro cid alle cidii naga caawinaysa oo binoor bayruuna Turkiga way weydiin Turkiga waxa inoo keenay wax aan runtii waxaan faraha lagu meeray iyo marka ay oran xamar wuxuu u geeyay diyaaradda buuxda inaga noo keenay waa siyaasadiisa go'aanka siyaasadiisa oo istiidan madaxweyne laba su'aalood baan jecelahay inaan ku weydiiyo su'aasha koowaad waxa weeye maanta waa maalintii xorriyadda saxaafadda kolbay nin walba halka ku dhex jiraa buu aad maaragtay la jecel uga leeyahay
waa maxay mowqifka siyaasiga ah ee xukuumaddaada iyo saxaafaddu haddaba maalinteedii la joogo su-aasha labaad waxa weeye dad badani waxay had iyo jeer isweydiiyaan tusaale ahaan maxaa deeqa somalilan soo gaadhay ama dhaqaale ama qalab ma isleedihiin xagga inaad dadka u sheegtaan waxaasaana soo gaadhay waxaa waanu filaynaa welina muu soo gaadhin ganacsatadii tidhi waxbaanu bixinaynaa way bixiyeen ama may bixinin si loo ogaado tamarta xukuumadeed wixii dadka kale tari laayeen oo aanay dadku u odhanin xukuumadda lafteediiba ama guddida lafteediiba wax nin hilaab xumi baa la yidhi waxba inuu wax qarsanayaa la moodaa maxaad labada su-aal kaga jawaabeysaa madaxweyne maas horta qalabka intii la soo gaarisay waa la wada sheegay qalabka horta dowladaha ajnabiga wixiina caawiyey waa la sheegay somaliland tijaarteeda wixii qalabka wax ka keenana waa la sheegay waxa haya dhexe kusoo jirana waa la sheegaya markaa qalabka isaga daata laga haya wasaaradda hayso haddaba waa idiin sheegi karaa wasiirku waa la qaybin karaa dhaqaalaha horta caalamka cid walba arrintan inaga caawiso waynu u furan non political way cid aanaan caalamka odhan arrintaa naga caawiyana ma jirto nin waliba walku waxay noogu shubayn wax ugu shubi doonaa waa la qiyaasaya berrito waxaa soo maraysa halka diyaaradda lagaa qatar airline oo socota xamar oo reer koroskeena la soo hay-ada ila xidhiidhay ah oo yidhi reer koroskaan idii soo maraynaynaa ama hay-adda samfalka ayaanu mucaawanada qayb idin siinaynaa oo hargeysaanu ku hakanaynaa maanta inay taadaabay ahayd waxay ay keentay waa la arki doonaa kuwii horena waxa ay keeneen waa la wada hayaa imaaraadka iyaguna diyaarad berigii keenay haddana waxay soo wadaan qalabkaa shaybaarista oo iminka duwa yaalla oo ka dhinaa markii hore waxaa turkiga wax yar buu keenay adigu wasiirkaa tabaashideed waxa ugu waaweyn wixii la keenay ganacsideennana ninkaa ismaaciil baa wax keenay oo maaro shalay buu keenay intii ugu horreysay xoogayna jidkay kusoo jirtaa maraha baabuur baa ku jira halkan jabuuti xooggeediina wuxuu yaallaa france in lagaga soo qaado france air france oo jabuuti marba timaado weynki ganacsadii kale hawshii waa ku jira waana lagu maqan guddi bay samaysteen way isku maqan yihiin kooda ugu yar kooda ugu weyn waynu sugaynaa wixii ka yimaada laakiin ilaa hadda ganacsada wixii qalabina waxaa naga soo gaaray wax dhaqaala oo ganacsada imika iyagu soo qoondeeyeenna ma jiro laakiin waanu isla qaadanay guddi chamberku hogaaminayo oo 11 nin ah ayay u qaybiyeen waxaanu filaynaa weegaanka soo socda inaad la wadaagi doontaan wixii ka yimaada marka xaggaa waxaanu ka nahay transberto ma qarine itaal buurba weynaanahay dowlad iyo xitaa shicibkeenuba marka xaaliyada imika waxaanu tijaar leenahay marka adduunka loo eego iyaga laftooda iska waxoge marka caalamka siduu yahay dee miisaanka la isku leeyahay maanta dhaqaale loo eegay meel joogno waxaas oo dhan ka weyn inaanu isla fahmano iyo garashadeen waxaas oo dhan ka weyn isla garashadeen qalabkan lagu keenayo o dhamme ee lagu xidhayo ee waxbaa ka soo qaaday waxa weeye inaad marka hore isbadbaadsaa ka weyn ood gurigaaga ciddaad badbaadso ayaa ka xoog weyn iminka marka la baaro dad badan baa soo bixi doona positive waxay u baahan yihin space lagu xereeyo oo dadka lagaga oodo oo koodii uu khatar geliya lagu daweeyo kii dee muddo kaga bixi lahaana uu iska joogo adigoo qaba oona adiga ku riday ayaad faafinaysaa adna waxa laga yaabaa inaad ka baxi diro qura kuu noqdo dhibtu waa halkaa in laga fahmo markaa dhaqaalaha intaasaanu ka hayna saxaafadda waanay ku bilaabantay dee waa maalintoodii waa dhow waan hambaliyey waanu duceeyo waxaan dee mabdaigu waa kaa war ilaahay dowladahan gacanta kula dhiman kara dowladda gacan qabo aan dhimanna allah inoo kaalano waan ka duceeyey waan ammaano waxaan kuli waa been ma sheegaya